Xulalka Italy iyo Spain ayaa iska hor imaan doona finaalka Euro 2020 kulan ka dhici doona garoonka baaxadda weyn Wembley. Kulankan oo si weyn loogu sugayo adduunka kubadda cagta. Xulka Italy ayaa kulankan soo galaya iyagoo qaab ciyaareed fiican weliba doonaya inay ku dhameystaan kor u qaadista koobka ugu qiimaha weyn qaaradda Yurub kubadda caalamiga ah. Dhanka kale, xulka England ayaa kulankan soo galaya iyagoo doonaya inay soo afjaraan abaarta ka haysata koobka qaramada qaaradda Yurub kuna guuleystaan markoodii ugu horeysay. Kulankan wuxuu u dhexeeyaa xulalka England iyo Italy. Tartanku waa Euro 2020 wuxuuna soo gali doonaa 10 habeenimo ama 4 saac habeenimo xilliga Geeska Afrika. Waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka baaxadda weyn Wembley Stadium magaalada London cariga dalka England. Kulankan ayaa noqon doona markii 10aad ee xulka Italy iska xaadiriya finaalka tartamada waaweyn ee koobka adduunka iyo Euro-da. Kaliya xulka Germany oo 14 jeer iska xaadiriya ayaa ka badan. Kulankan ayaa noqon doona markii ugu horeysay xulka England iska xaadiriya finaalka tartanka Euro-da, iyadoo weliba ugu horeysay ee iska xaadiriya finaalka tartamada waaweyn oo sidan oo kale ah. Kulankan ayaa sidoo kale noqon doona markii ugu horeysay xulka kubadda cagta England iska xaadiriya finaalka. Xulka England ayaa ah xulkii 13aad ee iska xaadiriya finaalka tartanka Euro-da. Kaliya 3 ka mid ah 12 xul oo hore ayaa laga badiyay kulankoodii ugu horeeyay finaalka tartanka. Xulka Italy ayaa kaalinta labaad ee ka galay tartanka Euro 2 jeer, iyagoo ay guuldarooyin kala kulmeen xulalka Spain iyo France sanadihii 2000 iyo 2012. Kaliya Germany ayaa ka badan marka laga hadlayo xulka kaalinta labaad ee ka galay tartanka, iyaguna 3 jeer ee lagu garaacay finaalka. Waana kulan la wada sugayo iyaduna isha lagu wada hayn doono xulalka England iyo weliba xulka kubadda cagta Italy kulanka kaba dambeeska tartanka Euro 2020. Haddaba yaa badan doona xulalka Italy iyo England? Fikirkaada noogu reeb qaybta commentiga.